السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين waxaan idin leeyahay walaalaha ku xiran halkan barta aan YouTube ku leeyahay ee Farxiyo Lucky waa walaashii Farxiyo Lucky halka iga daawaneysaan waa isla Farxiyo Lucky bacdi salaan waxaan maanta rabaa inaan ka hadlo arrin aad iyo aad u fool xumo badan mudooyin nagu soo noqnoqotay taas oo in gabdhihii Soomaaliyeed dhibaato loo geysanayo in gabdhihii Soomaaliyeed la kufsanayo in gabdhihii Soomaaliyeed maalin walba maxay aheedo lagu dhibaateynayo guriyihii jidadkii meel walba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan horta tacsi tiiraan la u dirayaa gabadhii ardayda aheed gabadhii yareed curdankii soo baxay aheed gabadha Soomaaliyeed aheed kufsiga ula kacay u geysteen dhalinyarada Soomaaliyeed ma dhihi karo dhalinyaro Soomaaliyeed waa dhalinyaro arxan darro isku baheysatay waa dhalinyaro isku baheysatay in ay maxay aheedo dhibaateeyaan wiil Soomaaliyeed miyaadan ahayn wiil miyaadan mustaqbal sugeen miyaadan gabar Soomaaliyeed inaad dhasho aadan sugeenin waxaad maanta u geysataa gabar Soomaaliyeed walaashaay bari ayaa loo geysan doonaa tii adiga aad dhashay warmaad Ilaahay ka xishootaan warheede wiilasha Soomaaliyeed la hadlayaa inta fiican ma ku jirto laakiin inta xun ayaan la hadli doonaa inkaar qaba aan caaqiba lahayn ayaa tahay asalkiisa iyo aayihiisana hoog iyo ba ay u dambeyn doonto Ilaahay ayaan kaaga bariyay aafo kugu dhacday Ilaahay waxaan kaaga bariyaa inuu jahannaba salka ku dhigo waayo markaad gabdhihii Soomaaliyeed oo walaalaha aheed meeshaad adiga cadowga aad ka dhici lahayd aad cadowga u horseedaysid meeshaad adiga aad dhurwayga aad ka ilaalin lahayd aad dhurway ku noqotay markii gabar Soomaaliyeed oo adiga walaashaaya ay ku aaminto markii gabar Soomaaliyeed oo walaashaaya ay ku jeclaato hadiiba aad adigii khiyaano ula fadhisid hadii aad adigii maxay aheedo aad maxay aheedo aad intaad ballamisay aad haddana aad maxay aheedo aad leedahay kaalay wiilal aad leedahay aad feelka galaysid Ilaahay waxaan ka baryayaa hadii aan nahay ummad Soomaaliyeed oo haddana islaam boqolkiiba boqol Ilaahay waxaan ka baryayaa marka ugu horeysa inuu calaamo Ilaahay ka ifiyo marka labaadna ummadda Ilaahay ka soo dhex saaro hadii ay kufsadeen xataa hadii iska deyn lahaayeen waxay ahaan lahayd waji ma aysan iska deynin waxay sameeyeen maxay aheedo gabadhii ayay dabaq ka soo tuureen nafteedii dhaafiyeen subxaanallah maalikul quduus lama arag Soomaaliyeed waxa la idin rabaa inaad u kacdaan Soomaaliyeed waxa la idin rabaa inaad xaq daradaas oo kale dadka nagu sameeyana iska dhex qabano wiilasha Soomaaliyeed inta damiirta leh waxaan ka codsanayaa in ay maxay aheedo waxa soo kale ay ka dhidhiyaan waxaan gabdhaha Soomaaliyeed ku boorinayaa war gabar walba gurigaada sharaf ku leedahay gabar walba gurigaada qiimo ku leedahay gabar walba gurigaada ayaad waxaad ku tahay wanaagsan edabsan qaalisan wax walba marka insha Allah taala hadiiba aad damac shukaansi kugu jiro haduu damac jecel kugu jiro waxaan idinka codsanayaa inaad gabdhihii Soomaaliyeed hadaad tihiin gabdhihii raay u baxa hadaad tihiin dhibaatada ugu badan gabdhihii ku dhacaysa hadaad tihiin inaad aadin hadaad jeceshahay gurigeena noogu imow hadii kalena walaalaha nagu dhibaato anaga hanoo horseedin intaas ina dhahdaan idinka codsanayaa insha Allah xamdi waxaan leeyahay xamdiyay adduunyo waa daaftay aakhira Allah ku saqiro qabrigaada Allah ku waasixiyo kuwii ibtilada ku geystay aayaha xun iyo noloshaadii ku dhaafiyay aayaha xun ku geysto noloshaadii ku dhaafiyay hana sanino adduunha ku raaxeysanina aakhirana halkii xumeed iyo jahannamo hoog iyo ba Ilaahay idin horseedo waan careysanahay soo ma jecli gabar Soomaaliyeed in dhibaato loo geysto ma jecli gabar Soomaaliyeed in wax la yeelayo waayo gabdha ayaan dhalnay maxay aheedo gabdhuhuna aad ay u dabacsan yihiin dhibaato waxa dareemi karta hooyo Soomaaliyeed maanta gabadheeda saas loo galay la kufsaday nafteeda la dhaafiyay caaw gurigeeda ay taalo tacsida caaw gurigeeda ay taalo murugada caaw gurigeeda ay taalo wax walba oo ma aragtay xaqiiqdii qofka bini'aadanka
uusan u adkeysan karin waxaan leeyahay sabr iyo iimaan. gabadhaasna ilaahay waxaan uga baryayaa bedelkeeda inuu ilaahay janno siiyo, kuwii kufsadana aakhiro jahanabaan ku ogahay. ilaahay waxaa idinka baryayaa islaamka inuu ilaahay idinka soo dhex saaro aan ka baryayaa ilaahay. waxaan idin leeyahay walaalayaal u dhiidhiya, qofkii meel ku og, qofkii og khiyaanolayaashii dhagarqabayaashii gabadha Soomaaliyeed dhibaatada u geystay, waxaa laga codsanayaa haddii aad walaalka u yahay xataa inaad xaq u hiiliso sidoo ilaahay aakhiro kuugu wanaajiyo insha Allah tacaala. waa idin salaamaya dhammaantiin, waxaan idin leeyahay soo dhawaada, xaqaha loo hiiliyo, masaakiintaasna ilaahay qabrigeeda ha u nuuriyo. waxaan idinka codsanayaa walaalaha qaaliga inaad iisii share gareysaan, inaad subscribe isiisaan, like iyo share ba ay dhahdaan, xaqana aad u hiilisaan insha Allah.